الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة رواشر حولان وكل يسوي من إلى نقرشه شنطة سنة هيدا دورسته تيار أنا كنت أفر هيدا الشغل اللي قبضته وحتى تعطيه بدبي هذا وحلو أبو مهمسن إلى على الصوف عافماتك الجود إيداتك إيو قلب كان شغاله دورسته الميلاد بدو way taabataa cunto dhar waxa guriga lagu isticmaalo waa ogtiino imanka dhakhtaradeen hadaad wareysato waxa inagu soo farabatay kansar cudurka kansarka oo loo marinayo inuu ka yimaado cuntada aynu cunno qaar kamida oo aan ku habooneen in bini'aadamku cuno waxa inagu soo batay carruurta hawbadaadii dadka waaweyn waxaan la yiraahdo xasaasiyadda ama samboorka oo loo tirinayo qalabkeenu guryaha dhigano iyo bahashan dawooyinkan ku buufino guryaha iyo qalabka dhigano loo tirinayo waxaan ka muuqataa da'deena yar inay wax iska bedeleen qaab nololeedkeena iyo cuntadeena oo dhalinyaradeena iyo dadka waalidkooda hadaad eegto xitaa qaab ahaan way kala duwan yihiin waxaana loo tiriyaa tayo xumada cuntada soo gasho waxaa loo baahan yahay markaa in hay-adani aynu xoog badan saaro si loo ilaaliyo tayada waxaynu cunayno waxaynu huwanayno waxaynu goglanayno iyo qalabkan isticmaalno waxaa ka mid ah shidaalka oo aad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaarigaashaynu wadana aanay gaadhin rubuc cimriga baabuurta kale ee dalka lagu wata loona tirinayo tayada shidaalada aynu ka shubno iyo habka looga shaqeeyo iyo baabuurku markuu imanayo oo aan cidina soo jeegarayn qiimaha uu leeyahay cimrigiisa waanta u hadhay iyo tayadiisa iyo mashiinada isticmaaloo dhan telefoonka ugu yar oo la cabiro codka ka soo baxaya iyo rayska imanaya inta dhagaha bini'aadmiga yeelaan cidina uma cabirtay carruurteedna 24 saacadood amba indhahay ku hayaan ama dhegtay ku hayaan deetana ilmihiisa waa 20 gaadhi baa indhahina siihin dhagihina siihin waxaasoo dhan baa la rabaa inay noo ilaaliso inaguna aan ku garab galno waanu ku hambalyeynaa qorshahan iyo hawshaynta iyo dadaalka ay qabteen waanaynu garab gelaynaa qodobka labaad waxaan tacsi u dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay ceelaf weyn oo aan la garanayn sababta loo laayay kuwa dhinta allah u naxariisto kuwa dhaawacana allah inoo caafimaadiyo halkaa ceelaf weyn iyo degmada garamayno wax ciidankaa lagu laayay wax alliyo wax dhibaato ciidanka ay isugu yimaadaan oo lagu laahiyo oo maanta la qiri kara ma jirto shil oo ilaahay markii hore lagu laayay saraakiishii booliiska iyo jeelka aadiyadana wax alli wax loo laayay aan la garanayn waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar isaga laayo deetana haddii la dulqaato qaranka dulqaato laga baradhawada hala ilaaliyo xagga hala wareego inay noqoto wada xalaal ah in ciidanka qaranka laayo maalin walba oo deetana ay noqdaan reeraheena laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qolo yahayna aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo hadduu qaranka yahayna lagu soo degdegaayo bilaacilo lagu dilaya wax dhici kara maaha haddaynu laba doonin xukuumaddu hadduu qaadato dadka hala waaniyo gacan qabo ha lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo doqonnimadu waa walaalo lama kala saari karo waxayna tahay waxaynu gaadhay dulqaadkii intay qaranku dhaafay imika inuu doqonnimadii ku jiro oo maalinba qaranka uu meyd soo walaaqsanayo oo hal ay tahay ninkii waa looga ooyaa waxayna tahay taasi inay dee soo afjarmayso caqli ka badan la keeno dhibyaraanta ciidamada qaranka loo leynayo annaga xukuumad ahaan iyo madaxweynaha waan ogahay inuu qaranku leeyahay maxaa laga qaadayaa reeraha leynaya ciidanka qaranka waan ogahay su-aasha ummadda sugayso waxaynu ka qaadi waxaynaan kula burburin ninka gardarana ku qabanno foodladeedayna waa aad iyo aad looga xumahay mana sii socon karto qaran ahaanna akhafu darribe waadadu yidhahda markay shareecadda eegayaan labada dhibaato tayar markaa waa in dambiirina la qabtaa yarkii gardarraa dee gacantiina gacan ka weynaa loo geysan ila waa la kari karayaa reerka inuu xalaynaya in cagli saareen dee labadii waa la isu eegaya laakiin caqli baa laga doonayaa dee dadka halkaa degan maalmo qaranka leynaya waana deegaan keliya taa arrintaasaan ku dhaafay
maasha daraato waxaan ku heshiinay xisbiyadii doorashadii la galo waxaan arkaa inay tallaabo weyn ahayd xisbiyada mucaaradka gaar ahaan waddanina waa uga mahadnaqaynaa inay aakhirkii nala ogolaadaan inaan doorashadii galno guddoomiyahooda in badan maqlaan waa uga mahadnaqaynaa inuu aakhirkii ka soo gaadho ogolaadana in doorashada la galo waxaan arkaa inay tahay tallaabo horumareed oo inoo soo hirgashay waxaa inoo xeela oo dastuurkeenu qoraya in golayaashu ay muddo joogaan ka u badan waa 6 sannadood guurtida inta kale waa 6 sano cadaaladdu waxay ka bilaabmaysaa qofku marka xilka loo doorto 5 sannadood ugu yaraan inuu u diyaar garoobo in doorashadu dhacdo uu ka howlgalo golayaashu ay imika badankoodu laab 3 laab iyo dheeraad ku jira waxaan jecelahay in dhammaan laga wada qayb galo doorashada si uu hirgalo waqtiga uu yahay golayaasha soo shaqeeya waa amaanayna qaranka hawl soo hayay aad baa loo dhaliilaa nin wala xil haybo waa la maagaya horta haday baarlamaan yihiin iyo haday guurti yihiin iyo haday gole dawladda hoose yihiin nina kursiga xoog uga fadhiyo inaga dooranay inuu diyaar garoobo baahay waqtiga la dooranayay oo resource ka dhaqaalihii iyo caqligii iyo xeerkii lagu dooranay inuu diyaarinay nina xoog uga fadhiyo inaga iskhilaafsan hadaynu xisbinahay siyaasiyiin iyo qaran oo warwareegay hawsheedu qabso warwareegay ku canaananaay iyaga inuu kuma dhagana meesha xog u digrey maantana waxaan rabaa inay dhammaantood ka qayb gali doonaan si doorashada loo geli lahaa kursiga la weeyay lahaa marka inagoo soo caloosan aan doorashada ka wada qayb galo canaan kala noo dheer had iyo jeer mujtamaceena sida caalamka ilaahay dadka uu umay waa laba islaam laba yeelay digbeernahay ragaydu warbeernahay oo ilaahay baa isu kan abuuray oo tirana waa la isu leeyahay aqalna waa la isu leeyahay hawliyad aqoonna waa la isu leeyahay hablaheeni way u diideen shirki golaasha yimaadaan dhaqankeena hore uu diidin oo anigu waxa soo gaaray hablaha rag la mid ah oo kaligood 100 kiiloomitir aw dhaana wada oo reer dhan oo reer caruurtii iyo xoolihii aan ragba joogin ee gabdhuhu joogaan oo rag ka sooriyayaan oo talada ka galaan oo hawsha qabtaan garan ma ay 20 sano 20 sano u dambeeyay إلى هبلو حما قبل كلام قلها كل حد هذا وعقلنا وعصوب وحنقوا إلى الدمر كنا الله وقرا حق إلى هنا كسر كلام قرياش أيضا كفور إياه أف معانا وشربك أنا وقرا سيق قلبي هذه كانت دور كي ببلش كي قرا كل نص ما باختصار مركنوا دينا رسالة قرا هوشة تهم نص ما باختصار علماء الله حالله دول كلامه وقرض يريه دول كأصحابه ولا هو قليه والنبي لا تريين حفظ الله وقرضه هذا يا أبو السلام عليكم ورحمة الله